kusoo gabagabeynaa hadalka dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u firfircoon dhibaatooyin badan waa qabnaa laakiin si hadii loo fiiriyo dad geesiin baan sababtoo ah qisay yar baan ii sheegayaa Alberta markaa u tagi jiray arrimaha dhalinyarada oo la dilayo waxaa jiro gobolka Alberta Canada waa wadan federal ah sidii Mareykanka marka waagii aan Alberta tagay nin oo journalist ah baa Soomaalida wuxuu ka qoray maqaal qaldan uusan qofna kala tashan maqaalkii baa marka ka jawaabnay jawaabtiina waxaa u dirnay xildhibaanada gobolka Alberta markaas loo yaxtaa ma ahayn ardayda marka ninka oo xildhibaanka Alberta gobolka Alberta baarlamaanka ku yaala ra'iisul baarlamaanka gobolka Alberta baa noo yahay anagoo Soomaali ah wuxuu yiri inaan iyo akaano marka warqadda waxaan dirnay Isniinta Arbacadooda marka soo galnay buu su'aal buu weydiiyay wuxuu yiri xafiiskan ahada taagantihiin ma taqaanin waqtiga ay ku qaadato qofka inuu appointment aniga ila yeesho markaas aan yiri may marka suu yiri 3 bilood ay ku qaadataa macnaha maanta hadaa qof uu yimaado u dhaho inaa ra'iisul baarlamaanka waa inaa arko 3 bilood ka bacdi ayaa chance la siinayo sababta schedule-kiisa aad u buuxa laakiin wuxuu yiri idinka Isniinta hadalkiina maqlay Arbacadana anaan niga codsaday inay ii timaadeen sababta ma taqaana ma yaani wuxuu yiri sababta waxa waa yiri 7-meeyadii baa waxa arki jiray dad Soomaaliyeed oo scholarship ku yimid oo wadankii Soomaaliya ka yimid oo Canada Alberta iman jireen waxbay ka baran jireen way laaban jireen wuxuu yiri marka 7-meeyadii arki jiray dan muddo adiga 20 sano ma arkin diin waa ku diin marka hadda waxa arkay inaad hadana Soomaalidu soo laabateen marka waxaan leeyahay inaan arko okay okay waan aragtay soo maxaa noo sheegaysaa wuxuu yiri waxaan waa inaan ii sheego waan leeyahay banahay u geesinimadiina wuxuu yiri wadanka wax yar joogtiin laakiin already waraqaha baarlamaanka u dilaysiin journalistayaasha iska celinaysiin annagii baa challenge nagu haysiin gudiyadii baarlamaanka danaha expert ahaan usoo istaagteen doorasho u tartamaysiin wallahi wuxuu yiri geesiin baa taa annaga wuxuu yiri dadka aan ka dhashay 3 generation nagu qaatay inaan macallin iskuul noqono idinkana wuxuu yiri idinkana hal generation gudihiisa baarlamaanka albaabadiisa garaacaysa marka runtii geesinimada oo Soomaalida iyo firfircoonanta wax weyn waayo oo wax badan la tari karo laakiin waxa la rabaa marka geesinimadaas iyo energy-gaas in loo leexiyo meesha saxda ah meesha saxdana waxa waaye walaalayaal inaad gashiin every hay'ad oo mas'uul idinka niga ah for example hadaa waalid tahay ilmahaaga iskuul dhigtaan iskuulka xubnaha laga xukumo gal hadii aad truck driver tahay association-ka truck drivers-ka boardkooda gal markaas go'aanada truck driver-ka laga gaaro miiskeeda fadhida hadaa miiska ka maqan tahay waa lagu cunaa ma miiska ku jirta